بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. أنا أقول الله مجا عبد المجيد ميدي جروب وحن تعسير تيران الله هبدا أن أصمرنا دمان صوماليين مال ولبا إيجوكتو جارهان الذي قرابدي أي كجريوتي عاش إلياس آدن هرنتي سي كبحسن إسلام نمدا صومالي نمدا إنسانية دبا لوجو فرحمي كدبنا نفتدد يجي دبا لوجو بنستي magaalada gaalkacyo runtii waa arin aad iyo aad u xanuun badan qof kasto damiir lehna oo ka danqanayo oo na dareemi karo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay. waxaan rabaa inaan Allah ugu baryo inuu Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan ehladii waalidiinta walaalaha asxaabta dhammaan inta ay soo wada noolaadeen ama waqtiga ay soo wada qaateen caasho Ilyas aadan runtii gabar aad iyo aad u yar 12 jir ah mustaqbal iyo nolol fiican rajaynaysay waalidkeedana ay u rajaynayeen runtii intaba dadka arintaas sameeyay ama falkaas ku kacay waxaan dhigi karnaa waa dad runtii damiirkooda iyo qalbigooda naxariista Ilaahay ka bixiyay isla markaana si aanan ka baxsan bini'aadanimada iyo diinta islaamka kula dhaqmay gabadhaas saqiirta waanan waxba galabsanin. waxaan la yaabanahay ama aan isweydiyaa maalinta qiyaamaha markii ay tagaan dadkii falkaas sameeyay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku yiraahdo bi ay dambin qutilat war maxaa sabab ah oo gabadhan ama dambiida ay gashay ama khaladka ay sameysay ama sababta ama reasonka ku disheen maxay tahay maalintii la yiraahdo wallahi ma aqaan wuxuu ku jawaabi doonaan ayaga iyo dad badan oo Ilaahay ku saliday dhiiga bini'aadanka runtii waa su'aal aad iyo aad u weyn qof walba falkaas geystayna oo maalinta qiyaamo la weydiin doono insha Allah Ilaahay waxaan ka magan galeynaa inuu sabab noogu dhigo qof bini'aadan ah dhiigiisa qof walba muslim ahna insha Allah ha ka duceysto inuu Ilaahay sabab ugu dhigo qof nool inuu asiga sababtiisa adduunyada ugu tago. waxaan rabaa inaan la hadlo mas'uuliyiinta maamulka Puntland oo runtii ah dadka gacanta ku hayo talada deegaankaas in ay arintaas ay ka dhidiyaan isla markaana ay gacan ka geystaan si dadkaas cadaalad loo horkeeni lahaa isla markaana ciqaabtii ay mudnaayeen oo loo marsiin lahaa maxay laadii ay taas dhacdo waxa yaraanayo falalka noocaas ah qofkii oo falkaas sameeyay ama laga sameeyayna waxay u tahay yani dhiirigelin sidoo kale dadweynaha iyagana laftirkooda kulay dadka arintaas sameeyay waa la yaqaanaa laakiin dad baa qarinayo dadka qarinayo ogow hadii aad qarisid qofkaas dambiilaha maalinta qiyaamaha waxa laga yaabaa in adigana yani qarintii aad qarisay darteeda aad ku muteysatid carad Ilaahay kadibna aad cadaab ku gashid marka intaysan taas dhicin qofka dambiilaha hadii aad xogtiisa ogtahay fadlan ku wargeli laamaha amniga si cadaalad loo horkeeno ciqaabta uu leeyahay oo loo marsiyo. hadal badan uma soo galin kaliya waxaan jeclaysanay hadii aan nahay dulmadiid media group inaan cabirno dareenkeena iyo aragtideena ku aadan yani dhacdadaas foosha xun isla markaana aan تعسيه هبد أصومرنا دمان صومالي ذا كأرهان الذي قرابدي كجريوتي أنا عاش إلياس آدم إلهي نحدث جنحسيه أنا جن إلهي صبر أنا جود السيد دمان صومالي ولن أن باخينا إيو أصيجنا وحوايه إن دتكاس عدالة الله كنا قف ولبو وأرنتاس حكت هذا أجنة وكقيب قاطه
oo laamaha amniga oo ku wargeliyo insha Allah waa maasantiin waxaan idinka codsanaynaa haddii aad muuqaalkan aragtid inaad u gudbisid walaalaha kale si ay tiiraanyada iyo tacsiid ay la qaybsadaan familkaas oo run ahaantii ay ka tagtay gabadhoodii ay gacantooda ku soo koriyeen oo aadka ay u jeclaayeen insha Allah subscribe share and like si aan isla wadaagno dhammaan fikradaha naga imaan doono iyo video ama muuqaalada aan soo geli doono insha Allah waa maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.